مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. السلام عليكم، رمضان كريم، رمضان مبارك. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago shurbada aadka u caafimaadka badan ee u quruxda badan si fududna waan u sameeyey. maasha Allah waxaad ku qadimi kartaa roodhi ama sideeda ayaad u cuni kartaa. haddii aad channelka ku cusub tahay intaanan videoga guda gelin fadlan subscribe ii saar, haddii kalena ehelkaaga iyo asxaabtaada la sii wadaag. wuxuu ka koobantay shurbadan maantu 2 lugood oo digaaga ama 2 pieces of chicken drumstick. sidoo kale waxaad u baahan tahay khudradda isku jirta ama ani khudrad aqalkaaga ku taala. anigu tan frozen ka max vegetable ka ayaan isticmaalaa. sidoo kale waxa aan ku darayaa coriander ama kamasero. digaag maadaama aan sameynayo waxaan u baahanahay inaan ayna wax ura yeelanin, marka kamasarada waxoogaa ayaan ku darayaa. sidoo kale waxaan ku darayaa xabad basal oo weyn, waanad ka yareyn kartaa, waanad ka badsan kartaa. 3 xabo oo toona, xabad maraq maajiga ah, milix iyo toon. intaas ayay ka kooban tahay shurbadeenu maanta. imika waxaan bilaabayaa inaan sameeyo ama aan idin tuso saan shurbada u sameeyo. marka ugu horeysa waxa weeyaan obviously in yar oo saliida ayaan ku shubanayaa digsigayga. basashii oon soo jarjaray ayaan ku ridayaa imika. basasha haddaad doonto 2 xabo ka dhigo haddaad tahay dadka basasha aadka u jecel. waana dabooleysaa, dabkana waad ka khafiifinaysaa. waxa aan ku daray 3 xabo oo toon ah oon soo dhilay ayaan ku darayaa. marka waan isku daboolayaa, waxaan sugayaa in intaasi isdhex gasho. imika basashii way soo yara casaanaysaa, ma rabo inay xoog guduud u noqoto, marka waxaan ku ridayaa imika 2 xabo ee digaagaha. diirka waan ka soo qaaday, waana soo maydhay, waan soo nadiifiyey. iyaga digaaga marka la nadiifinayo waad ogtihiin khal baa lagu maydhaa, lindhanaan baa lagu maydhaa, aad baan iskaga soo maydhay maasha Allah. sayna hadhow tale wax uraanan uga arkin shurbadayda. waanan ku yara huuriyey basashii iyo toontii. sidoo kale magic ama maraq digaagii ayaan ku riday. imikana wax intii ugu dambeysay ayaan ku darayaa waa khudradaydii ama mixed vegetable-kayga isku dhex jiray. milixdaydii iyo muxuu haaye intii ii harsaneyd ee kale ayaan ku daray. maasha Allah tabaaraka raxmaan. wax biyo marka hore kuma daray, waan isku yara huuriyanayaa ilaa dhowr daqiiqadood. waxaan rabaa inay khudradda ama udgoonkaasi ugunta ka gala digaaga. markastood sameynaysan waxaad sameysaa dabka ka gaabi. fiidooga waxaan idiin soo duubay anigoo degdegaya, marka u dulqaata haddii gacanteedu yara dhaqdhaqaaqayso. imika waxa aan ku darayaa in yar oo biyo ah baan ku darayaa. dee waxaan rabaa inuu digaagu ii bislaado. intuu kaaga bislaanayana waad sugaysaa, markuu soo bislaadana waxaad ku daraysaa kamasaradaada. hadda 2 lafood ee digaaga ayaan ka soo saaray. waxa aan ka dhilay intii hilibka ahayd. waayo lafta ma rabo inay aan ku rido marka dambe. lafta marka hore inuu maraqa fiican ka baxo maan doonayay. gebigiisaba waan soo wada qaaday. waxaan gelinayaa casaarada. taad casiirka ku ridqataad ku ridqan kartaa, hand blenderka ayaad ku ridqan kartaa. wixii markaa ku ag yaale fudud ee wax ridqaya ayuunbaad ku ridqanaysaa. muhiimaddu waxa weeyaan inuu si fiican u ridqamo oo shurbadaasi wax oo aad adagama wax dhex taagtaaganayna lahayn. anigu waxaan jecelnahay badanaa in shurbadayadu ay noqoto shurbad aad u jilicsan. dadka qaarkood waxay ku daayaan iyadoon ridqanayn oo laga dhex arkayo khudradii ama baradhadii iyo wixii. laakiin anagu waxaan jecelnahay inay sidaa smooth noqoto oon waxba laga dhex arkin. maasha Allah tabaaraka raxmaan. sidaas ayay soo baxday. aad ay u fiicantahay in afurka la cuno maadaama saacado aad u badan la sooman yahay, especially dadka qurbaha jooga saacado aad u badan baan soonnaa. marka xagga sambuusaha mar walba ka cuni lahayd kanaad ku bedelan kartaa marmarka qaarkood. aad ayaad u mahadsantihiin intaad daawanayseen. insha Allah intaan fiidoogeeda ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya. naftaada adaa hogaansha, adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye. kun haybood noloshu weeye, kun hawlood baa ku xeeran, kun bay hakisaa dharaan.